السلام عليكم. هدي أدخل السبتاي channel كان ديارام العبدي فضلا سبسكرايب صار لسه برنامج يدا ويكي بهالمر هوية يدلان ما أنت برنامج كان وحو كسابسن يهي سيدي أيا لو حكمين كرا أما بلغو هرتقي كرا أما لو داوين كرا مرحلة الله يقانا والله عايا أستانتا وهم تقدرن يلالو بدا inkastoo aan la ogeyn xaddiga dhammayska tiran ee lagaga hortegayo ama lagu daaweynayo ama lagu xakameynayo haddana waxaynu isku dayeynaa inaynu xakamayno marxaladan aynu xakameyn karno maadaamaynu ognahay xaaladani haddii ay sii daba dheeraato hooyada inay soo wajahayaan xaalad aada u halis badan dee waxa isweydiin mudan sidee ayaa looga hortegayaa muhiimadda ugu weyni waxa weeyaan inay hooyadu dhammaan ka fogaato wixii ay ku badnayd xilligii aanay uurka qaadin ka hor hadday cadar ahayd iyo hadday cunto ahayd iyo hadday gariim ahayd sababtaynu saa u leenahayna waxa weeyaan laga yaabaa wixii hooyadu ku badnayd markii hore markii walaacdo hadday isheedu ku badato inay hooyadu wiswisto dabeetna halkaa matag badan u yimaado waxaynu kale hooyada leenahay waa inay cuntadeeda beddesho oo ay ka fogaato dhammaan cuntooyinka qoyaanku ku badan yihiin iyo saliidu waa inay hooyadu xaddi yar cuntadii ka qaadato oo weliba hooyadu cuntooyinka qallalan aan saliidda lahayn iyo qoyaanka sababta mar aynu leenahay hooyadu waa inay xaddi yar qaadato ma aha ujeedadu hooyadu xaddi yar oo cuntaabu jirhkeedu u baahan yahay ee waxa weeyaan hooyadu inay xaddi yar qaadato waxa ku qasbaysaa inay matagi yaraado oo meeshii matagi oo hadday hooyadii cunto badan cunto laga yaaba in hooyadii matagto markiiba laakiin hadday xaddi yar qaadato hooyadii waxa laga yaabaa in matagi hakado aanay matagin haddaba 3 saacadood ama 2 saacadood waa inay marba wax cunto hooyadii marba wax soo cunto mar sharaab yar mar wax yar marba wax yar marka waa inay cuntooyin qallalan qaato cuntooyinka qallalanna waxay noqonayaan sida tufaaxii muuskii buskud yaroo qallalan quraac yaroo qallalan waxay kale noqonayaan bariis yaroo qallalan cinab salad iyo tamaandho yaroo cagaaran oo la jarjaro liin dhanaan lagu daray sida liin macaanta dhammaan cuntadaas hooyada waxay ka caawinayaan hooyada iyo ilmahaba faa'iiday u leeyihiin cuntooyinkani marka hore waxaanay hooyada ka caawinayaan inay hooyadu matag badan samaynin haddaba waxaa jirta marxaladahan hooyooyinka qaar aan la xakameyn karin haddaba hadday dhacdo hooyada inaan marxaladan halkaa lagu xakameyn karin oo matagu uu sii bato oo fuluul badani jirhkeedii ka baxo dareero badani waa in hooyadan cusbitaal lala xidhiidhsiiyaa si loogu soo cesho fuluulkii ka baxay jirhkeeda ama dareeri jirhkeeda ka baxay oo loogu xidho sida dhagastaroos iyo ringar faleembooyinkaas ama dareeraha ugu saxsan lagu xidho jirhkeeda ee isku dheeli tiraya electrolyte-ka ku jira jirhkeeda si looga hortago xaaladaha adag ee hooyada la soo darsaaya iyo ilmahaba si loo siiyo dawooyinkan mataga bromidosine iyo sida nutrition supplementiga ee vitamin B1 B6 iyo B12 haddaba barnaamijkeena dambe wax aada u xiiso badan baad la socon doontaan insha allah bidmillaahi kariim barnaamijkeena halkaas ku eegaya